السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu eegi doonaa dawooyinka loo isticmaalo nausea and vomitingka ama lalabada iyo mataga. Dawooyinkan waxaa loo yaqaanaa anti-emetics. Sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda labaad ee loo yaqaano emeticska. Anti-emeticsku waa kuwa mataga joojiya, emetickskuna waa kuwa mataga keena. Labaduba mararka qaar xaaladda caafimaad aad bay muhiim ugu yihiin. Anti-emetic are drugs used to prevent or treat nausea and vomiting. Dawooyinka anti-emeticsku waa dawooyin loo isticmaalo in lagaga hortago ama prevention lagu sameeyo, sidoo kale lagu daweeyo lalabada iyo sidoo kale vomitingka ama mataga. Nausea vomitingka causeskoodu waa maxay? Waxyaalaha sababa nausea iyo vomitingka maxaa kow ka ah? Kow waxaa ka mid ah motion sickness. Qofka safarka inta badan dadka safarka u baxa mataga ay matagaan ee ay baabuurta iyo gaadiidka kusii dul matagaan ayaa waxaa loo yaqaanaa motion sickness. Laba, morning sickness ama pregnancy induced vomiting. Haweenka uurka leh marka ugu horeysa uurka qaadan ama marka dambe dhexdhexaadka ah inta badan waxa ay caadaystaan matag iyo lalabo. Kaas ayaa waxaa loo yaqaanaa morning sickness. Iyo sidoo kale dawooyinka qaar sababa ama drug inducedka kuwa loo yaqaano ee mataga sababa, gaar ahaan dawooyinka opioidska iyo dawooyinka anti-cancerka. Opioidska ay ka midka yihiin tramadol, morphine ayaa ka mid ah opioidska. Sidoo kale anti-cancerka cisplatin, cyclophosphamide, inkastoo cisplatinka ugu caansan uu yahay, dawadaasi waa mid ka mid ah dawooyinka anti-cancerka ee sababta mataga. Hadda waxaad ogaanaysaa uncontrolled vomiting can produce dehydration, profound metabolic imbalance and nutrient depletion. Haddii aan mataga la kantaroolin ama mataga aanan kantaroolka ama xadka lahayn ee aadka u badan wuxuu sababaa kow fuuqbax. Laba, profound metabolic imbalances in energyda jirku ay noqoto mid aan balance garaysnayn ama dhammaan shaqooyinka kala duwan ee jirku noqdo mid aan balance garaysnayn. Iyo sidoo kale nutrient depletion iyo nafaqada qofka jirka inay hoos u dhacdo maadaama wixii uu cuno matagayo inuu malnutrition uu galo qofku ayaabay sababi karaan. Dawooyinka marka loo isticmaalo nausea vomitingka waa afartan kooxood. Kooxda koowaad waxaa loo yaqaanaa antihistamine, kooxda labaad waxaa loo yaqaanaa anticholinergic, kooxda saddexaad dopamine 2 antagonist, kooxda afraad serotonin receptor antagonist. Kooxda koowaad waxaa loo yaqaanaa antihistamine. Antihistamineka inta badan waa dawooyinka ugu horeeya ee loo isticmaalo for motion sickness and postoperative emesis. Dawooyinkan inta badan waxaa loo isticmaalaa in lagaga hortago ama lagu daaweeyo qofka safarka u baxaya mataga uu leeyahay caan ku yihiin, iyo sidoo kale qaliinka kadib ama post operationka qofku mataga uu keento ee uu matago ayaa lagu daaweeya qofka mataga xilliga qaliinka uu kasoo baxo. Dawooyinkan qaabka u shaqeeyaan waa maxay? Sida magaca ka muuqata waa antihistamines. Dawooyinkan waxay yareeyaan nausea iyo vomitingka by blocking iyagoo xidhaya action of histamine 1 receptor, shaqada histamine 1ka ee caloosha. Inta badan histamine 1kaasi muxuu qabtaa which promotes kaasoo kor u qaada smooth muscle contraction, murqaha calooshu inay isku noqdaan. Murqaha calooshu inay isku noqdaan ayuu sababaa antihistamine. Sidaa laajligeed haddii ay murqaha calooshu isku noqdaan ay contraction sameeyaan waxaa dhacaya in wixii caloosha ku jira uu soo baxo oo qofkii halkaa vomiting uu ka sameeyo. Sidaa laajligeed waa in la joojiyaa shaqada antihistamine ama histamine 1ka. Dawooyinkan maxaa tusaale u ah? Dawooyinkan waxaa tusaale u ah dawada loo yaqaano dimenhydrinate, dawada kale ee loo yaqaano promethazine, dawada kale ee loo yaqaano meclizine. Saddexdaa dawo waa saddexda dawo ugu caansan ee loo isticmaalo nausea vomitingka. Dimenhydrinate iyada oo dooskeegu yahay 50 miligram oo afka laga qaato kiniin ay tahay way jirtaa, 25 miligram sidoo kale. Promethazine iyadoo 10 miligram ah iyadoo 25 miligram ah oo leh kiniin iyo sharoobo iyo sidoo kale suppository carruurta loogu talagalay iyo sidoo kale injection intuba waa ay jiraan. Dawada meclizine inta badan waa kiniin 12.5 iyo sidoo kale 25 miligram waa ay leedahay. Side effectiga dawooyinkani ay keenaan dimenhydrinate, promethazine iyo meclizine waxaa ka mid ah sedation,
inuu qofku hurdo dareemo, gaar ahaan dawadan diamine hydrate-ka qofka waxay ku sababtaa inuu sedation yeesho ama uu hurdoodo. waxaana laga mamnuucay dadka galaakoomada qaba ama xanuunkii hadda kor aan soo sheegnay ee intraocular pressure-ku qofka marka uu bato ishu ay bararaysay. sidoo kale chronic lung disease qofka haddii uu sanbabada dhibaato ka qabo, haddii qofku urination ama urinary retention uu qabo ama kaadidu ku adag tahay BPH aawadeed xanuunkii la odhan jiray prostate hyperplasia ama qanjirkan kaadi hoosta prostate-ka loo yaqaano ama prostate glandigu marka uu qofka bararo, xaaladaas hadday qofka haysato taasoo sababaysa inay kaadidu qofka ku dhegto, dawooyinkan dimenhydrinate, promethazine, meclizine lama siin karo. dawooyinkan sidoo kale kooxda labaad waxaa loo yaqaanaa anticholinergic. Anticholinergic-ga used as transdermal patch for motion sickness and also gastrointestinal spasm. dawooyinkan anticholinergic waxay aad u fiican yihiin in la isticmaalo oo maqaarka lagu dhajiyo iyagoo patch ahaana transdermal patch iyagoo ah si looga hortago mataga inta badan safarka ku yimaada qofku markuu gaadiid raaco mataga ku yimaado and also gastrointestinal spasm. hadda kahor waan soo dhiganay anticholinergic-ka dawadii loo yaqaanay hyoscine in ay joojiso casiraada. marka dawooyinkani mechanism of action-koodu waa sidee? They block the action of acetylcholine. waxay joojiyaan shaqada acetylcholine taasoo ah to relax smooth muscles, inay dabciso murqaha caloosha, particularly gaar ahaan gastrointestinal caloosha, urinary tract kaadi haysta. sidoo kale waxay joojinaysaa spasm as well as cramping. dawada ugu caansan ee tusaalaha u ah anticholinergic waxaa ka mid ah dawadan loo yaqaano hyoscine oo iyadoo 5 miligram ah la helo, iyadoo 10 miligram ah la helo, injection iyo kiniinba lagu helo. marka waxaad ogaanaysaa hyoscine ama kiniinkan loo yaqaano buskud bam laba faa'iido leeyahay. dhinaca wuxuu joojiyaa motion sickness vomiting-ka mataga ka yimaada, sidoo kale wuxuu joojiyaa casiraada ayaabuu joojiyaa. side effect-ga dawada ay keentahay hore baan usoo dhiganay waxaa kamid ah sedation, dizziness, confusion, dry mouth. waxaa qofku inuu hurdoodo, inuu tawakho, inuu confusion yeesho, inuu sidoo kale afku qalalo. intaas ayaaba kamid ah contraindication-kana waxaa kamid ah narrow angle glaucoma, qofka xanuunka glaucomada haysa ama intraocular pressure increase-kii qofka cadaadiska isha gudihiisu ay aad u kordhaysay, myasthenia gravis qofka murqihiisu contraction sameeyaan ama xanuunkaas qaba, urinary ama gastric retention, urinary or gastric retention qofka kaadidu ku dhegto ama qofka calooshu aysan socon. kooxda kale waa dopamine 2 antagonist-ka kooxda loo yaqaano are effective in prevention or treating nausea and vomiting induced by drug, radiation therapy, surgery and most other stimulants like pregnancy. dawooyinkani waa kuwa ugu waxtarka fiican ee loo isticmaalo in lagaga hortago ama lagu daaweeyo mataga ka yimaada mataga ay sababaan dawooyinka qaar, mataga ay sababaan radiation therapy ama shucaaca, mataga ka yimaada qaliinka ama bosti ha noqdo ama biri ha noqdo, iyo sidoo kale dhammaan waxyaalaha kale ee kicin kara qofku inuu matago ay tusaale u tahay pregnancy-ga. sidoo kale dawooyinkan inta badan kuwo aad ugu firfircoon maaha motion sickness-ka, qofka safarka u baxayo aad uguma roona. mechanism of action-koogu waa maxay? waxay block-gareeyaan sida adiga ka muuqata dopamine iyo sidoo kale serotonin receptor in chemoreceptor trigger zone located in the brain. sidoo kale waxay block-gareeyaan dopamine-ta iyo sidoo kale serotonin-ka kaasoo inta badan laga helo CTZ-ka ama waa qaybta emotion-ka qofka u qaabilsan, kaasoo inta badan trigger gareysa ama sababta inuu qofku matago ama lalabo uu la yimaado. marka dawooyinkani waxay xidhayaan taas bay xidhayaan. dawooyinkan dopamine antagonist-ga waxaa tusaale u ah dawada ugu caansan ee loo yaqaano metoclopramide iyo sidoo kale dawada loo yaqaano chlorpromazine. labada dawo waa labada dawo ee ugu caansan. dawada metoclopramide-ka inta badan hosbitaalada waxaa loo yaqaanaa Bilaasil baa loo yaqaanaa, iyada oo kiniin ah way jirtaa, iyada oo suppository ah, iyada oo oral drop ah ama afka dhibic lagu siinayo way jirtaa, iyo iyadoo sidoo kale injection ah. dhammaan noocyada kala duwan ama dosage-yada kala duwan waa ay leedahay. chlorpromazine sidoo kale iyada oo kiniin ah way jirtaa, iyada oo sharoobo ah way jirtaa, iyada oo oral drop ah
way jirtaa iyadoo sidoo kale injection ah way jirtaa. Marka labada dawo waa labada dawo ee ugu caansan ee loo isticmaalo nausea and vomiting at health care facility-ga. Side effect-ga dawooyinkan metoclopramide ay sababaan waxaa ka mid ah dizziness, tawakhaad, fatigue, daal, headache, madax xanuun, diarrhea, shuban, and sleep restlessness iyo sidoo kale hurdada oo qofka ku yaraata. Cidda laga mamnuucay dawooyinkan waa kow allergic reaction to the drug hadduu qofku allergy ama xasaasiyad ku qabo dawada. Bleeding in stomach or intestine hadduu qofku leeyahay calool dhiig ama mindhicir dhiig ama xiidma dhiig caloosha haddii ay in general dhiigayso qofkaas lama siin karo. Sidoo kale kidney or liver problem hadduu qofku kelyaha iyo beerka dhibaato ka qabo. Haddii qofka sidoo kale slow heartbeat hadduu qaraaca wadnihiisu hooseeyo ama xaaladan loo yaqaano bradycardia ay haysato qofkaas lama siin karo. Kooxda kale waxa weeye kooxda loo yaqaano serotonin receptor antagonist. Serotonin receptor antagonist waa dawooyinka inta badan ugu fiican uguna wanaagsan. They are the most widely used drugs for chemotherapy induced MSS. Waa dawooyinka ugu fiican dawooyinka anti-cancerka ah ama chemotherapy-ga loo yaqaano ee mataga ay keenaan waa dawooyinka ugu fiican serotonin receptor-ka. Mechanism of action-kooda waxaa ka mid ah dawooyinkani waxay block gareeyaan ama joojiyaan the action of serotonin shaqada serotonin taasoo ah walax dabiici ah inta badan sababta matag iyo lalabo. Markaas waxaad ogaanaysaa waxyaalahan leenahay dopamine, histamine, serotonin dhammaantoodba waa neurotransmittero maskaxda laga soo sii daayo kuwaasoo inta badan ka mas'uula shaqooyin fara badan oo jidhka uu qabto iyo sidoo kale shaqooyin badan oo maskaxdu ay soo amarto. Marka serotonin receptor antagonist waa dawooyin joojinaya soo deynta ama shaqada serotoninka. Dawooyinkana waxaa ka mid ah kow ondansetron dawada loo yaqaano, laba granisetron. Labada dawo waa labada dawo ee ugu caansan loona isticmaalo mataga ka yimaada dawooyinka chemotherapy-ga gaar ahaan dawada ondansetron iyada oo kiniin ah way jirtaa iyadoo sidoo kale injection ah way jirtaa. Side effect-ga dawooyinkan ay keenaan waxaa ka mid ah kow waxaa ka mid ah headache madax xanuun, dizziness tawakhaad iyo sidoo kale constipation. Xaaladaasna waa ay sababi karaan. Kooxda kale aan eegno waa kooxda loo yaqaano emeticska waa kamatajiyayaasha. Si kooban haddii aan summary u galo kooxihii hore aan soo sheegnay waxaa ka mid ahaa dawooyinka mataga loo isticmaalo waxaa 4 kooxood bay ahaayeen antihistaminiskay ahaayeen waxaa caan ugu ahayd dawadii la odhan jiray dimenhydrinate. Anticholinergic baa ka mid ahaa sidoo kale waxaa caan ahay dawadii ugu caansan ahayd hyoscine. Dopamine 2 antagonist waa dawooyinka ugu quwadda weyn leh uguna isticmaalka badan yahay uguna waxtarka badan waxaa ka mid ahaa metoclopramide ama blazil iyo sidoo kale chlorpromazine. Sidoo kale dawooyinka kale ee loo yaqaano serotonin antagonist waxaa ka mid ahaa maxay ondansetron iyo granisetron waana dawooyinka ugu caansan ee loo isticmaalo mataga ka yimaada dawooyinka anti-cancerka ah. Intaa ka bacdi waxaan dhiganaynaa dawooyinka kamatajiyayaasha ama loo yaqaano ama emeticska. Emeticska waa drugska inta badan loo isticmaalo in lagu sababo ama qofku matago. Sababta qofka looga matajinayo xaalado fara badan bay keeni kara. Kow inducer emesis in preferred meaning in between the stomach in a awake patient who have dawooyinkan emeticska waxaa la siinayaa laga matajinayaa qof soo jeeda ama qof aanan hurdin ama qof miyirkiisu dhammaystiran yahay maadaama ay qofka ka matajinayaan haddii uu qofku miyir daboolan yahay xaalado fara badan bay ku sababi karaan inuu matagiyo ama dareerihii au qofku matagi lahaa inuu respiratory tract dib ugu noqdo infectionna kala duwanna uu sababo aspirator pneumonia iyo xaalado aad u fara badan. Marka qofka waxaa laga matajinayaa haddii ay jiraan injected toxic substance ama toxic substance hadduu qofku sun cabay waa laga matajinayaa. Recently taken a drug overdose hadduu qofku dawo xaddigii loogu talagalay maana xaddi ka badan uu qaatay kaasoo sababi karo inuu qofkaasi ku sumoobo ama poison ku noqdo waa laga matajinayaa. Dawada ugu caansan the most common used emetics is a syrup of epicac. Dawada ugu caansan ee inta badan qofka matajisa ama mataga loo isticmaalo waa dawada loo yaqaano epicac. Dawada loo yaqaano epicac ayaa ugu caansan ama emetinka.
Ipecac syruptu inta badan waxay si toos ah irritation ugu sameysaa ama u kicisaa gastric mucosa dahaadhka caloosha and sidoo kale waxay ka howlgashaa CTZ-ka ama waxa loo yaqaano chemoreceptor trigger zone-ka. Marka dawadan Ipecac syruptu waxay si toos ah u xoqdaa ama irritation ugu sameysaa dahaadhka caloosha kaasoo marka la xoqo micnihii sababaya in wixii ku jiraa uu banaanka uga soo baxo iyo sidoo kale waxay kor u qaadaa chemo trigger zone-ka waa meesha emotionka qofka saan hore usoo sheegaynay iyo inuu qofku matago maskaxda aadamaha ay ka maamusho marka si guud maanta waxaynu soo baranay dawooyinka mataga lagaga hortago ama lagu daaweeyo waana 4 kooxood iyo sidoo kale dawooyinka kamatajayaasha